السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كنا maanta waxaan kaga hadli doonaa haddii la yiraahdo waxa loo yaqaano LCM iyo HCF. runtii casharkan ama labadan ciwaan waa laba ciwaan aad muhiim u ah xisaabta ama barashada xisaabta waliba xisaabta asaasiga ah. af Soomaaliya aan ku sheegno oo kale LCM waxa laga soo gaabiyay least common multiple. Soomaaligeedana wuxuu noqonaa dhufsana yaraha ay wadaagaan. HCF na ayadana waxa laga soo gaabiyay isirweynaha ay wadaagaan. waa erayo isu tagtagay insha Allah mid aan arki doonaa hadaan ka soo qaadno oo kale highest common factor ama isirweynaha ay wadaagaan. marka ugu horeysa waxaan baranaynaa waxa loo yaqaano factor. isir waa maxay? isir luqadda Soomaaliga waan ku naqaanaa laakiin marka la joogo xisaabta maxaa loo yaqaanaa? waxaan kula arki doonaa sidoo kale common factor. waa maxay common factor? isirka ay wadaagaan laba tiro ama ka badan waa maxay? sidoo kale waxaan markaas ku sii dulqaadan doonaa highest common factor ama isirweynaha ay wadaagaan. si kale hadaan u dhigno gudaha markaan u galno ayaan arki doonaa haddii la yiraahdo. meelaha qaar waxaa laga yaabaa inaad aragtid HCF. sidoo kale waxaa loo qori karaa greatest common divisor. waxaa loo qori karaa greatest common divisor na waa loo qori karaa. sidoo kale hadaan u nimaadno LCM ayadana waa xarfo isu tagtagay. waxaa kamid ah xarfahaas multiple oo loo yaqaano dhufsane. maxaa loo yaqaanaa? xisaabta markaan joogno arki doonaa. sidoo kale common multiple dhufsanaha ay wadaagaan laba tiro muxuu noqon doonaa? ayadana markaan gudaha aan u galno ayaan si fiican uga bogan doonaa insha Allah. least common multiple dhufsana yaraha ay wadaagaan laba tiro ama ka badan muxuu noqon doonaa? okay, haddii aad meelaha qaar aad ku aragtid lowest common multiple na waa lahaa least iyo lowest labadana waa isku macno haddii la yiraahdo insha Allah. dhinacana kasoo bilaabi doonaa waxaan arki doonaa marka ugu horeysa highest common factor ama isirweynaha ay wadaagaan. kadibna waxaan u gali doonaa LCM oo dhufsana yaraha ay wadaagaan insha Allah. waxaan idin socodsiinayaa anigoo Ustaad Yaasiin Axmed Yaasiin. intaan gudaha u galin yaa loogu talagalay casharka inuu barto. qofka rabo inuu casharkan LCM HCF yaa baran kara. waxaa baran kara ardayga soo qaatay basic operationska arithmetic basic operationska xisaabta asaasiga sida ku dartaa ka jirtaa ku dhufashada u qaybida. sidoo kale qof hore soo bartay divisibility rules xeerarka u qaybsamida tirooyinka tirada u qaybsami karta. okay, intaas haddii aan isla fahanay waxaan rajeynayaa in aan casharka gudaha u gali doono insha Allah. aan ka wada faa'iideysan doono casharkeena gudaha u galaynaa. okay, waxaan ku bilaabaynaa factor waa maxay? sida noogu qoran oo kale hadda meeshan tiro kasta waxaa loo qaybin karaa taranta laba tiro ama ka badan oo tirooyin ah. haddii aan haysto hal tiro ama tiro la siiyo waxaan u qori karaa tiradaas la siiyay laba tiro oo la isku dhuftay oo kale aan qori karaa ama ka badan aan qori karaa. tusaale meeshan waxaa loo soo qaatay number 8 ayaa loo soo qaatay. 8 waxaan u qori karaa oo waxaan dhihi karaa hal lagu dhuftay 8 waan dhihi karaa. waxaan kaloo dhihi karaa 2 lagu dhuftay 4 waan dhihi karaa. 2 lagu dhuftay 4 waan dhihi karaa. marka meeshan aan taagan hal lagu dhuftay 8 2 lagu dhuftay 4. marka maxaan ka dareemayaa meesha in 1 2 4 iyo 8 ay yihiin isirada tirada 8. micnaheedu taas waxay tahay oo 8 hal waan u qaybin karaa 8 waan u qaybin karaa 8 2 waan u qaybin karaa 8 4 waan u qaybin karaa. marka dhammaan numberka wuxuu u qaybsami karaa waa isiradiisa. numberka wuxuu u qaybsami karaa isiradiisa. okay, tusaale labaad soo qaadan oo kale number 6 waxaa loo qori karaa hal lagu dhuftay 6 waa loo qori karaa. waxaa kaloo loo qori karaa 2 lagu dhuftay 3. sidaa darteed waxaan leeyahay 1 6 2 iyo 3 ayaa waxay yihiin isirada tirada 6 ayaan leeyahay. oo haddii aan rabo inaan raadiyo isirka tiro waxaan sameyn karaa tiro walba oo qaybsanto waxaan dhihi karaa waa isirkeed. tiro walba ay u qaybsanto ama tiro walba u qaybsamo numberka waxaan dhihi doonaa waa isirkiis. waxaan filayaa xogaa aad fahanteen insha Allah. tusaalooyinka soo socda ayaan ku kaga sii bogan doonaa. okay, markaan qeexayna isir maxaan ku qeexaynaa? isir waxaan ku qeexaynaa
isir waa mid ka mid ah labada tiro ama ka badan kuwaas oo u qaybsami kara tirada lagu siiyey. Xogaa waxaa laga yaabaa qoraalka inaadan fahmin, laakiin haddii aan qoraal ahaan u muujino waxaan dhahnay isir waa mid ka mid ah labada tiro ama ka badan kuwaas oo u qaybin kara tirada lagu siiyey. Okay, tusaale aan usoo qaadano 7 iyo 8 aan u kala qaadano laba tiro inay tahay oo kale. 7 isiradeeda maxay noqon karaan? Waxaan raadin karaa markaan 7 isiradeeda aan raadinaa tirada tirooyinka u qaybsanto 7 hal way u qaybsantaa, 7na way u qaybsantaa. oo markii aan raadinayo slaadka xigeen ugu imaan doontaa waxay ka timaadaa 7 hal lagu dhuftay 7 ay ka timaadaa. kuwana waxay yihiin waa labada tiro ay u qaybsami karto. Okay, 8 ayadana maxaa loo qori karaa? waxaa loo qori karaa hal lagu dhuftay 8 oo loo qori karaa, 2 lagu dhuftay 4 waa loo qori karaa. marka 8 waxaa kaloo loo qori karaa meeshan waxaa ku qoran hadda ila fiiri meeshan waa isir waa mid ka mid ah labada tiro ama ka badan kuwaas oo u qaybsami kara tiradii lagu siiyey. marka kuwaas oo u qaybsami kara tiradii lagu siiyey hada tirada 8 aan leeyahay meeqa tiro u qaybsami karaa? wuxuu qaybsami karaa hal u qaybsami karaa, 8 u qaybsami karaa, 4 u qaybsami karaa, 2 u qaybsami karaa. 7na ayadana waxay u qaybsami kartaa hal u qaybsami kartaa, 2 u qaybsami kartaa. marka waa labada tiro ama ka badan waxay noqonayaan intaan noqonay labada tirona waa labadan tiro. marka labadaas tiro ay qaybin kartaa haraal la'aan. marka 8 waxay qaybin kartaa haraal la'aan 4 tiro. marka 4 tiro ayaa waxaan dhahaynaa isir ayaan dhahaynaa. 4 tiro ayaa waxaan dhahaynaa isir ayaan dhahaynaa. Okay, marka haddii aan rabo inaan raadiyo isirada tiro sideen kusoo heli karaa? isirada tiro haddii aan rabo inaan raadiyo sideen kusoo heli karaa? Step 1, hel tirooyin walba oo haddii la isku dhufto ku siinaya tirada lagu siiyey. tusaale hadda waxaan soo sheegnay number 8 aan tusaale usoo qaadanay. waxaan raadinaynaa laba tiro walba oo haddii la isku dhufto number 8 na siinayo. laba tiro walba haddii la isku dhufto number 8 na siinayo. waxaan dhahaynaa hal lagu dhuftay 8 wayna siinaysaa 8, 2 lagu dhuftay 4 ayadana wayna siinaysaa 8. oo ma jira laba tiro kale haddii la isku dhufto oo 8 na siinayo ma jirto. waxaan ka hadlaynaa waa tirooyinkeedana ka hadlaynaa. Okay, step 2 maxaana la yiri? waxaana yiri mid u tax tirooyinka aad isku soo dhufatay. hadda markaa si isirada aan soo saaro waxaan sameynayaa tirooyinka labada tiro aan isku soo dhuftay mid u taxaya. waxaan leeyahay 1, 2, 4 iyo 8. marka kuwana waxaan leeyahay waa tirada 8. Okay, ama haddii kale waxaan sameyn karaa aan baraadi tirooyinka qaybin kara haraal la'aan tirada lagu siiyey. Okay, aan tirada la siiyey 8 ahayd. marka 8 aan waxaan raadinayaa tirooyinka u qaybsami kara ama tirooyinka ay u qaybsami karto. 8 waxay u qaybsami kartaa hal, sidaa darteed hal waxaan leeyahay waa isir. 8 2 ma u qaybsami kartaa? way u qaybsami kartaa min 4 u helayaan. 2 waxaan leeyahay iyadana waa isir. 8 3 ma u qaybsami kartaa? waa maya, 3 isiradii kama mid ahan. 8 4 ma u qaybsami kartaa? way u qaybsami kartaa. 4 waxaan leeyahay isiradii uu ka mid yahay. 8 5 ma u qaybsami kartaa? waa maya. 8 6 ma u qaybsami kartaa? oo haraal la'aan aan ka hadlaynaa. 8 uma qaybsami karto 6. 8 7 uma qaybsami karto, laakiin 8 way u qaybsami kartaa. marka waxaan leeyahay tiro walba ay u qaybsantay ayaa waxaan leeyahay waa isirkeed. hadda hal uu qaybsamay way u qaybsantay, 2 way u qaybsantay, sidoo kale maxay u qaybsantay 4 way u qaybsantay, sidoo kale maxay u qaybsantay 8 way u qaybsantay. markaas waxaan leeyahay tirooyinka isirada tirada 8 waxay noqonayaan waa 1, 2, 4 iyo 8. marka si aan u helay isirada tirada waxaan sameynayaa marka hore waxaan raadinayaa laba tiro haddii isku soo dhufto tirada isiin kara. tusaale 8 la siiyey, laba tiro la isku soo dhufto raadinayaa hal 8 ku dhufo, 2 4 ku dhufo. haddii tirooyin kale jiraan la isku soo dhufto 8 isiin karana waa qoran lahaa.
markii aan qortaan kadib labada tir isku soo dhuftaa mid u taxaya kadib tixitaan soo taxaya waxay noqonaysaa isradii ayay noqonaysaa waxaan filayaa inaad fahamteen insha Allah okay tusaalahan aan qaadano raadi israda 12 raadi israda 12 steps-ka aan soo qaadanay oo kale 12 waxaan sameynayaa waxaan raadinayaa laba tir hadii la isku soo dhufto 12 siinayo laba tir hadii isku soo dhufto 12 siinayo waxay noqonayaan hal lagu dhuftay Okay, so I have been ready to the factors of 24 are israda 24 waxay yihiin waa 1 2 3 4 6 8 12 iyo 24 intaas waxaan leenahay waa israda tirada 24 oo hadii si kale aan u dhigo waxaan leeyahay 24 intaan tiro ay haraalaan u qaybsami kartaa 24 hal way u qaybsami kartaa 2 way u qaybsami kartaa 3 way u qaybsami kartaa 4 way u qaybsami kartaa 6 8 12 ilaa 24 meeshan fikradan aan nooga soo baxayso oo ah mar walbo aan tirada isradeeda aan raadinayno waxaan ku dhex arkaynaa hal waxa jiro qaacida ah hal waa isirka tira walba hal waxaan dhahaynaa waa isirka tira walba hal waxaan dhahaynaa waa isirka tira walba oo macnaheedu yahay number 1 amba hal number walba waa loo qaybin karaa 5 hal waa loo qaybin karaa 3 hal waa loo qaybin karaa 4 hal waa loo qaybin karaa marka number 1 waa number walba uu qaybsami karaa taas macnaheedu waa number walba isir uu noqon karaa waaye waxaan rajeynayaa inaad intana aad fahamteen hadii la yiraahdo okay marka aan fiirino qaybta ka dambaysa waxaan leeyahay marka dhamaan qaybtan aan jawaabta saxda ah kuugu diyaariyay marka inaad isbarbar dhigto jawaabta soo saartay iyo jawaabta meesha noogu qoran waan rajeynayaa inaad fahamteen waan ka gudbaynaa insha Allah intaas waxay ahayd sidee loo soo saaraa isirka tiro hadda waxaan arkaynaa sida loo soo saaro isirada ay wadaagaan tusaale ahaan laba number la siiyay labada number la siiyay isirada ay iska midka ay ka yihiin ama hadii si kale aan u dhigo laba tiro hadii la siiyo labada tiro numberada ay u wada qaybsami karaan okay yana markuu ugu daalinin waxaan dhahaynaa common factors waa isirada ay wadaagaan marka waxaan ku bilaabaynaa isirada ay wadaagaan laba tiro isirada ay wadaagaan laba tiro tusaale raadi isirada ay wadaagaan 6 iyo 8 okay markaas marka ugu horeysa waxaan sameynayaa waxaan qaadanayaa 6 isiradeedan soo saaraya horena oo soo aragnay sida loo soo saaro marka soo saarana number walba soo saarana waxa ka hal wada wajin kale isoo kale laba wada saddex wajin kale marka isirada number soo saartay mid waxa ku saarayna isirada 6 waa maxaa 6 waa hal 2 3 iyo 6 okay sidoo kale 8 ayna sidoo kale sameeyaa tooyin isku dhafay jinka maxaa waa mar waxaan waa hal isirka tiro waxaan tiro isirka hal waaye hal wada 8 iyo 2 wada 4 marka inaan waxaan waa isirada 8 waa hal 2 4 iyo 8 oo hadda waxa la weydiiyay common factors isirada ay wadaagaan isir intan laga heli karo intana laga heli karo kor hal waa laga wada heli karaa 2 iyo 2na waa laga wada heli karaa 3 kor waa laga heli karaa laakiin hoos laga ma heli karo 6 kor waa laga heli karaa hoosna laga ma heli karo marka
isirada ay wadaagaan wax kale loolama jeedo, waxaa loola jeedaa isiro korna laga heli karo hoosna laga heli karo. Haddii si kale aan u dhigo tirada 6 iyo tirada 8 nambarada ay u wada qaybsami karaan yay noqonayaan 1 iyo 2 u wada qaybsami karaan. 6 1 waa loo qaybin karaa, 8 1 waa loo qaybin karaa. Okay, 2 2 way u qaybsamaysaa, 8na 2 way u qaybsamaysaa. Marka waxaan leenahay isirada ay wadaagaan waxaa loola jeedaa 2 nambar haddii la isiiyo wuu ka badnaan karaa dabcan 3 wuu noqon karaa, intuu doono noqon karaa nambarka. 2 nambar la isiiyo nambarada ay u qaybsami karaan ayaa waxaan leeyahay waa isirada ay wadaagaan. Haddii si kale aan taxo isiradooda mid walba isiradiisa aan taxo, isirada kor laga heli karo hoosna laga heli karo oo ay common ka yihiin ay wadaagaan ayaa waxaan leeyahay waa isirada ay wadaagaan. Marka hoos waxaa inoogu qoran isirada ay wadaagaan 6 iyo 8 waa waxay noqonayaan marka waxay noqonayaan waa 1 iyo 2. oo haddaan si kale u dhigo 8 waxaa loo wada 6 iyo 8 waxaa loo wada qaybin karaa 1 iyo 2. 1 waa loo wada qaybin karaa, 2na waa loo wada qaybin karaa. Way qaybin karaan haraa la'aan, wax haraa ma soo haraa. Okay, waxaan ka gudbaynaa intana. Okay, tusaalooyinkan aan ku fahmaynaa oo hadda waxaan arkaynaa sida loo raadiyo isirka ay wadaagaan 2 tiro. 2 tiro way ka badnaan karaan aan dhahnay 2 tiro. Marka 2 tiro isirada ay wadaagaan waa hadda 2 tiro aan haysano waxaa waaye waa 12 iyo 15. Okay, aan ku bilaabno isirada 12 aan ku bilaabno. Sida caadiga ahayd sideen isir ama sideen mataqaanaa number isiradiisa aan kusoo saari karaa. Marka waxaan sameynaa wadooyinka aan dib doono marka sameynaa 2 tiro isku dhafan sidoo kale waxaa leeyahay 12 waxaa hal wada 12 sidoo kale 12 waxaa leeyahay 2 wada 6 sidoo kale 12 waxaa leeyahay 3 wada 4 inta waxaa leeyahay waa isiradi inta waxaa leeyahay waa isiradi waa 1 2 3 4 6 iyo 12 sida 12 waa 1 2 3 4 6 iyo 12. Okay, sida shaytana waa okay raayay sida shaytana isirada raayay shaytana waxaa ku waa number waxaa ku hal wada 6 number waxaa ku shaytana sida hal wada 6 waxaa ku hadii number kale isku dhigay kan okay shaytana inta number waxaa leeyahay sida shaytana waa 1 2 3 5 iyo 15. Marka isirada ay wadaagaan 12 iyo 15 waa maxay wadaagaan? Waxay wadaagaan 1 way wadaagaan, 3 way wadaagaan, maxay kale wadaagaan? Wax kale ma wadaagaan. Marka waxaan leeyahay waa 1 iyo 3 aan leeyahay. Isirada ay wadaagaan 15 iyo 12 waa 1 iyo 3 aan leeyahay. Taas waxay ka micno tahay 15 iyo 12 labadanba way u wada qaybsami karaan. Waa 15 1 iyo 3 waa loo qaybin karaa, 12na 1 iyo 3 waa loo qaybin karaa bilaa baaqi wax haraa iyadoo aan soo harin. Intana waxaan filayaa inaad fahamteen, waan ka gudbaynaa. Okay, laba tusaale kala leysiyay oo 18 iyo 24. Okay, 18 iyo 24 waxaa la weydiiyay isirada ay wadaagaan. oo haddii si kale aan kuugu dhigo 18 iyo 24 lambarada ay u wada qaybsami karaan, labadoodaba u wada qaybsami karaan. Okay, waxaan ka bilaabayaa 18 aan ka bilaabayaa sida caadiga ahayd. 18 aan soo saarayaa isirada aan soo saarayaa waxaan leeyahay laba nambar oo isku dhufto 18 siinaysa. 18 waxaa lagu heli karaa hal dhufto 18 sidoo kale 18 waxaa lagu heli karaa laba lagu dhuftay 9 sidoo kale waxaa lagu heli karaa 3 lagu dhuftay 6. markaan leenahay LCM iyo HCF wax baran karaan dadkii hore ku dhuftay soo bartay basic operations ka soo qaatay markaan oo kale inuu yaqaan ardayda 18 tirooyin isku dhuftay kusinka tirooyin isku dhuftay 18 kusin kara 3 lagu dhuftay 6. marka saddex isirada 18 waxay noqonayaan waa 1 2 3 6 9 iyo 18. Okay, 24 kale 24 oo kale 24 ayadana tirooyin isku dhuftay 24 kusin kara waxay noqonayaan waa sidaan ugu soo sheegnay hal inuu yahay isirka tiro walba iyada ka bilaabana hal lagu dhuftay 24 laba lagu dhuftay 12 3 lagu dhuftay 8 4 lagu dhuftay 6. marka 24 ayadana isirada waxay noqonayaan waa 1 2 3 4 6 8 12 iyo 24. Okay, marka hadda 18 isirada waan soo saaray, 24 isirada waan soo saaray. marka maxay wadaagaan aan fiiri waxay wadaagaan 1 way wadaagaan, 2 way wadaagaan, 3 way wadaagaan. way wadaagaan markaan leeyahay korna waa laga heli karaa hoosna waa laga heli karaa. 6 way wadaagaan, maxay kale wadaagaan 9 hoos lagama heli karo 18. marka intaasay wadaagaan waxaan leeyahay isirada ay wadaagaan 18 iyo 24 waa
waa hal labo saddex iyo lix. markasta waan kusoo celcelinaya, waxaan leenahay ay wadaagaan isirada ay wadaagaan waxaa loola jeedaa nambarada 18 iyo 24 nambarada ay u qaybsami karaan, u wada qaybsami karaan, oo labadoodaba way u wada qaybsami karaan 1 2 3 iyo 6. okay waxaan filayaa qaybtan iyadana inaan fahamnay oo gudbi doonaa. okay waxaan u gudbaynaa 3 nambar. haddii waxaan soo dhahnay isirada ay wadaagaan waxay noqon karaan 2 tiro noqon karaan, 3 tirona way noqon karaan. 3 tiro haddii lagu siiyo oo isirada ay wadaagaan soo saar lagu weydiiyo, micnaheedu waxaa waaye nambarada 3 nambar lagu siiyey nambarada ay wada qaybsami karaan. haddii nambaro badan ay yihiin, haddii ay yihiin nambarada ay wada qaybsami karaan. marka 3 nambar mid walba isiradiisa soo saaraysaa, kadibna waxaad ka raadinaysaa isirka laga wada heli karo dhammaan. okay aan ku bilaano 24. aan ku bilaano 24. waxaan leenahay 24 waxaa lagu heli karaa 2 lagu dhuftay 24 laba lagu dhuftay nambardan 24 12 sad dhowr mar soo qaadana markaan buubsiina soo daya 2 lagu dhuftay 12 3 lagu dhuftay 8 4 lagu dhuftay 6. marka isla 24 waxay noqonayaan waa 1 2 3 4 6 8 12 iyo 24. okay aan fiirino 36 isirada aydan maxay noqonayaan 36 isirada maxay noqonayaan 1 lagu dhuftay 36. okay 2 lagu dhuftay 18 3 lagu dhuftay 12 4 lagu dhuftay 9. intaasna waa lagu heli karaa iyadana 36 haddii nambarka la jiran saddex kadibna mid mid u guuri. oo hadda waxaan leenahay isirada 36 waa 1 2 3 4 oo waxa kale lagu heli karaa meeshan aan ku daro 6 lagu dhuftay 6 waa lagu heli karaa 4 6. okay 9 12 18 iyo 36 okay 36 okay intaan hoos isagagaasi qaybtaas kale ayadana aan qaybtan isirada 12 ayadana aan soo helo. okay 12 isiradeeda maxay noqonayaan ayadana waa 1 lagu dhuftay 12 2 lagu dhuftay 6 sidoo kale 3 lagu dhuftay 4. marka isirada 12 waxay noqonayaan waa 1 2 3 4 6 iyo 12. okay marka isirada ay wadaagaan 24 36 iyo 12 waa maxay noqonayaan waxay wadaagaan fiirnina waxay wadaagaan 1 way wadaagaan kulligood, 3dooda way wadaagaan, 2 way wadaagaan, 3 way wadaagaan, 4 way wadaagaan, 6 way wada wadaagaan, 12 sidoo kale way wada wadaagaan. markaas waxaan leeyahay intaasba way wadaagaan, intaasba way wadaagaan, intaasba way wadaagaan. waxay wadaagaan 1 2 ay wadaagaan, 3 ay wadaagaan, 4 ay wadaagaan, 5 ay wadaagaan, 6 iyo 12. taas micnaheedu waxay tahay 3dan tiro ee la siiyey, 3da tiro ee la siiyey waxay u wada qaybsami karaan, intaan u wada qaybsami karaan, intaas ay wada qaybsami karaan. marka isirka lagu sheegayo micnaheedu waxa waaye in nambarka uu qaybsami karo isirkiisa. okay qaybtan ayadana waxaan filayaa inaad fahamteen. waan ka gudbi doonaa qaybta kale aan gudbaynaa. okay waxaan kale ku jirnaa wili waxaan ku jirnaa isirada ay wadaagaan 3 tiro aan ku jirnaa 6 iyo 8 iyo 18. 3 kale oo tiro waxaad haysaa isirada ay wadaagaan sida caadiga ahayd 6 isiradiisa waxaan ku helayaa tirooyinka isku soo dhufta kusiin kara 6 waa 1 iyo 6 iyo 2 iyo 3. marka isirada 6 waxay noqonayaan waa 1 2 3 iyo 6. okay 8 isirada 8 ku helana waa 1 iyo 8 isku dhufano 2 iyo 4 aan isku dhufano. marka ayadana isirada 8 waxay noqonayaan waa 1 2 4 iyo 8. okay 18 ku helaa isirada 18 waxaan leeyahay waxaan raadinayaa sida aan horu soo aragnay marka rabo isirada laba tiro aan isku soo dhufto nambarka la siinayo nambarka lagu siiyo kadibna mid mid aan nambarka u qaadanayo saas aan ku soo saaray isirada nambarka lagu siiyo. okay lagu dhuftay 18 2 lagu dhuftay 9 2 lagu dhuftay 18 3 lagu dhuftay 6. marka waxaan leeyahay isirada 18 waa 1 2 3 6 iyo 18. okay intaan isiradan mar walba laba isku dhufto tiradii 18 ka siin doona. okay haddaan 1 ku dhufto 18 laba haddaan ku dhufto meesha 9 ka tagay sorry 9 ka tagay. okay 6 markaan qoray waa inaan 9 ku xijiyaa si mataqaanaa tartiibta ay isku xijinta tirooyinka ay ugu sahlaato 9 iyo 18.
هذا كل مرة حال 8 كل فوق 8 لaba 9 كل فوق 8 3 9 كل 6 كل فوق 8 marka isradii alla la isku dhufto ama 3 ama 6 isradii isku dhufto mar walba waa inay wiciyaan numberkii hore ay ka yimaadeen waa inay wiciyaan marka qaybta hoose waxaan ku dhameystiraynaa israda ay wadaagaan 6 8 iyo 18 waxaan leeyahay waxay wadaagaan hal way wadaagaan labo way wadaagaan saddex ma wadaagaan oo saddex israda 6 waa laga heli karaa saddex laakiin israda 8 lagama heli karo laakiin 8 waa laga heli karaa 6 sidoo kale ma lagama wadaagi karo marka waxay wadaagaan aan leeyahay waa hal iyo laba wadaagaan hal iyo laba wadaagaan okay marka hal iyo laba wadaagaan waxa la jeedaa markaas aan ku soo celinayaa 6 8 iyo 18 waxa loo wada qaybin karaa hal iyo laba waa loo wada qaybin karaa 6 waa hal iyo laba waa loo wada qaybin karaa 8 hal iyo laba waa loo qaybin karaa haraalaan 18 hal iyo laba waa loo qaybin karaa haraalaan waxaan filayaa qaybtaasna inaad fahamteen waan ka gudbina insha Allah okay tusaalaha saddexaad tusaale kale oo saddex tiro ah waxaa la yiraahdaa israda ay wadaagaan 8 12 iyo 24 okay waxa nagu cusub maahan waa maanta waxaan hor u soo arkaynay marka waxaan sameynayaa 8 israda 8 raadinaya marka soconay marka waa celin hal 8 laba usoo qiimo soo sameeyay insha Allah aad kan khadaba aqoona laba ulfay afar israda macna waa hal laba afar iyo 8 okay laba israda macna waa laba ulfay laba ulfay 6 7 laba ulfay afar israda macna waa hal laba 7 afar 6 iyo 7 okay israda la afar macna waa hal ulfay afar laba ulfay 7 laba 7 laba ulfay 8 afar laba ulfay 6 okay israda la afar waa hal وكون حال لو سيدة أفر لا سيدة لو لا تفر أقول واحد يقول عليه وحنا شنو نقول لا تصرف سيدة لا تقول اسمه حال ممكن الناس عملها يصير كذا لوسي معه حال لو سيدة أفر لا سيدة طويل لو يو لا تيم أفر لا تيم أفر كذا ما فينا زمان كذا نحاول ذاكان حال وذاكان لو وذاكان أفر وذاكان سيدة أفر وذاكان لح موذاكان ما لح دي لو يتمن iyo 14 12 ilaa 14 wadaagaan 8 6 laga heli karo marka waxa leeyahay meesha ku keenaa waxa leeyahay israda ay wadaagaan 6 12 ilaa 14 waxa leeyahay waa hal labo iyo afar leeyahay hal labo iyo afar leeyahay okay waxaan filaynaa soo laabatay marka hadii aan si mataqaanaa degdeg aan dul marno 8 waa israda waa kuwan dhowr mar aan soo qaadanay 10 israda 10 waa intan okay 24 isradeedana waa idana waa intan marka maxay wada wadaagaan hal way wadaagaan labana way wadaagaan sidaa darteed israda ay wadaagaan 8 10 iyo 24 waxaan leenahay waa hal iyo labaan leenahay hal iyo labaan leenahay okay waxaan mid u soo aragnay marka hore factor waan soo aragnay isir waan ka soo sheekeynay marka hore aan ka soo sheekeynay factor aan ka soo sheekeynay sidoo kale qaybta kale ahaan aad noogu dambeysay waxaan ka soo sheekeynay common factor isirada ay wadaagaan laba tiro ama ka badan ama saddex afar way noqon karaan way sii socon karaan haddii afar ay noqdaanna sidii hadda saddexdan ku soo sameeyay oo kale ku sameynaysa wax kale oo cusub kuma sameynaysid hadda waxaan ku dareynaa marka highest common factor laba tiro isradooda kan ugu weyn hadda mid walba inta israda soo saarnaan intii ay wadaagaan ka wada qaadanayeen marka inta ay wadaagaan yaa ugu sii weyn yaa ugu weyn oo marka hadii tusaalahan aan ka shaqeyno laba tiro iyo saddex tiro aan ka shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo isir weynaha ay wadaagaan laba tiro raadi isir weynaha ay wadaagaan 6 iyo 8 okay waan soo dhowr mar soo qaadan 6 iyo 8 marka waa iska boobsiinina waa hal labo 3 iyo 6 okay 3 waa hal labo 4 iyo 8 okay marka isir weynaha ay wadaagaan 6 iyo 8 waa maxay wadaagaan okay labo isir weynaha ma hal mis labo noqonaya marka isir weynaha ay wadaagaan wuxuu noqonayaa labo noqonaya oo macnaha taas waxa loo jeedaa 6 iyo 8 labadoodaba waxay u qaybsami numberka ugu weyn ee labadoodaba u qaybsami kara wuxuu noqonayaa labo noqonayaa 6 labo u qaybi iyo 8 labo u qaybi numberka ugu weyn numberka kale ka sii weyn oo aan laba ahayn ma jiro oo labadooda ay u qaybsami karaan
marka 6 hal way wada qaybsami karaan 8 na hal way u qaybsami kartaa marka isirka ugu weyn waxa loo jeedaa labada tiro ee lagu siiyay ama 3 tiro ha noqoto numberka ugu weyn ee labadooda ay u qaybsami karaan numberka ugu weyn labadooda ay u qaybsami karaan inkastoo dhowr number ay wada qaybsami karaan kuwaas waxa leenahay waa isiro laakiin numberka ugu weyn waxa leenahay waa isirka ugu weyn inta waxa filayaa in la fahmay oo ku jidana duulada okay tusaalahan kala fiirino raadi isir weynaha ay wadaagaan 12 iyo 15 wax kale looma jeedo isir weynaha waxa loo jeedaa 12 iyo 15 numberka ugu weyn ee labadoodaba u qaybsami kara marka hore waxaan soo saaray isirada horena oo soo sheegay talaabadan waa iska wada dheer laakiin si kale loo soo saarana way jirtaa idan gadaal aan ka arki doonaa insha Allah isirada 12 maxay noqonayaan dib buujiyo maxay hal wada 12 3 4 okay 15 aan soo saaray hal wada 15 3 5 okay isirada 12 waa hal 2 3 4 iyo 12 isirada 15 waa hal 2 3 iyo 5 iyo 15 marka maxay wadaagaan hal way wadaagaan laba way wadaagaan saddexna way wadaagaan marka anima common factor u baahanahay uma baahni common factor laakiin waxa u baahanahay highest common factor isirka ugu weyn ee wadaagaan marka isirka ugu weyn ee wadaagaan wuxuu noqonayaa 3 wuxuu noqonayaa marka waxa leenahay isir weynaha ay wadaagaan 12 iyo 15 waa 3 oo haddaan si kale kugu dhigo 12 iyo 15 tirada ugu weyn ee labadoodaba u qaybsami karta waxay noqonaysaa 3 ay noqonaysaa tiro 3 ka weyn oo 12 iyo 15 wada qaybin karta ma jirto 12 3 ay u qaybsami kartaa 15 3 ay u qaybsami kartaa laakiin tiro ka weyn oo labadoodaba u qaybsami kartaa ma jirto 4 haddaan ka soo qaado oo kale 4 12 waa loo qaybin karaa laakiin 4 15 ma loo qaybin karo marka isirka ugu weyn ee wadaagaan laba tiro micnaheedu wuxuu la micno yahay inaan soo saaro numberka ugu weyn ee labadooda ay u qaybsami karaan intana waxaan filayaa in la fahmay waan ka gudbaynaa okay waa isla su'aal kale oo isir weynaha ay wadaagaan laba tiro aan ku jirnaa wali labada tiro aan hadda la siiyay waa 18 iyo 24 18 iyo 24 okay wuxuu ku bilaabay 24 waa isla meeshii markastoo aan isirada aan soo saaro kadib intay wadaagaan kan ugu weyn aan ka qaadan lahaa mar walba 24 ku bilowba intaan isir weynaha ugu weyn aan soo saarin hal way wadaagaan laba way wadaagaan saddex way wadaagaan lix way wadaagaan intaasay wadaagaan marka intaas oo dhan ma u baahanahay intaas oo dhan waxaan u baahanahay isirka ugu weyn ay wadaagaan marka isirka ugu weyn ay wadaagaan wuxuu noqonayaa 6 ayuu noqonayaa isirka ugu weyn ay wadaagaan wuxuu noqonayaa 6 lixdan isirka ugu weyn ay wadaagaan haddii lagu weydiiyo maxay tahay wax kala maahan 18 iyo 24 labadoodaba waxay u wada qaybsami karaan 6 numberka weyn oo labadoodaba ay u qaybsami karaan ma jiro waa macnaha 18 6 waa loo qaybin karaa 24na 6 waa loo qaybin karaa waxaan filayaa inaad qaybtana aad fahamteen waan ka gudbaynaa okay isir weynaha ay wadaagaan 3 tiro ama ka badan inkastoo anaga hadda 3 aan qaadanay ka badan waa soo saari kartaa oo wax cusub ma sameynaysid inta 3 aad ku sameysay oo kala 4 wixii ka badan ku sameyn kartaa marka raadi isir weynaha ay wadaagaan 6 8 iyo 12 okay 6 dhowr jeer aan soo qaadanay isirada tirada 6 waa 1 2 3 marka inkastoo anaga waxay wadaagaan aan dan ka lahayn
laakiin waxa ay wadaagaan kan ugu weyn aan kalena maadaama nala weydiiyey isir weynaha ay wadaagaan maxay kala wadaagaan 6 ma wadaagaan waxay wadaagaan 2 ay wadaagaan 2 ay wadaagaan marka isir ama isirada meeshan waa isir weynaha ay wadaagaan isirada ay wadaagaan kaliya la weydiiyey markaan maadaama 2 god aan soo aragnay isir weynaha ay wadaagaan laakiin 3 god wuxuu ku bilaabay isirka ay wadaagaan marka isirada ay wadaagaan waxay noqonayaan waa 1 iyo 2 okay hadda marka meeshan waxaan ku arkaynaa isir weynaha ay wadaagaan 3 tiro isir weynaha ay wadaagaan 3 tiro 3 tiro waa 6 12 iyo 24 waa buufshiina maadaama dhowr jeer aan soo qaadanay tirooyinkan oo ay fiicneed inaan tirooyin cusub aan sameyno isiradooda laakiin waa sameyn kartaa si walba ay ahaato maxay wadaagaan saan hore usoo sheegnaba 1 waa isirka tiro walba 2 way wadaagaan 3 way wadaagaan 6 ma wadaagaan 6 way wadaagaan marka waxaan leenahay isir weyne maadaama nala weydiiyey anaga isirada dhan uma baahnin waxaan u baahanahay kan ugu weyn aan u baahanahay waxaan leenahay isir weynaha ay wadaagaan 6 12 iyo 24 waa 6 aan leenahay 6 ayaan leenahay isir weynaha ay wadaagaan 12 6 iyo 24 waxay noqonayaan 6 ayuu noqonayaa okay qaybtan waxaan filayaa in la fahmay okay haddii intaas aad soo saartay way ku saxan tahay jawaabtaada qaybtan waxaan filayaa inaad meeshan kaga baxno waxa loo yaqaano HCF ama GCD oo isir weynaha ay wadaagaan 2 tiro iyo ka badan marka qaybtan waxaan kaga geli doonaa LCM ayaa u geli doonaa waxaan filayaa ama waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu dheeraado marka LCM isaga darsi kale oo gooni ah ayaan ka dhigi doonaa sidoo kalena sida hadda oo idin soo gaarayo codka masaajid iga dhow oo kale maadaama xilli salaad ay tahay bacda salaad ayaan isku dayaa inaan duubo LCM isagana waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan waxaa ilaahay ka baryaa inuu na waafajiyo khayrka wixii aan qaldayna waad ila soo socodsiin kartaan wixii aan saxayna mataqaanaa ilaahay agtiisa ka aadeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh